السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمان أرددا دقتا BT Academy. سلام كدب ما أنتوا حاربنا هنا بلاونا كورس وصف أو كساسا برنامج كأركيكت. كورس كان أو قيب سنان دونا لاو قيب عن ديزاين جرين دونا 2D بلانك. iyo qayb aan design gareyn doono insha Allah 3D plan ama 3D view soo noqon wanaagsan course-kan qofka la qofkii u baahan oo soo dalban kara diyaar way diyaarsan yahay insha Allah maanta hore u socono marka gurigeena waxa uu ka qabnan doonaa guri villa oo cabirkiisu uu yahay 25 waxaana ka rabaa inaan ka soo saaro 4 qol fadhigooda kushiinkooda iyo dining hall iyo lagu suuli iyo meel oo waaske ama meel oo swimming pool marka intaas rabaa iyo baakin oo laba gaari ay gali karto marka intaas ka soo saar rabaa insha Allah hadii la gaarsiiyo aan isla socono programkaas bilaawayna marka insha Allah okay shashada markay saan ku tahay waxa soo kicinay markood architect arkab waxaan noqon karaa mid 20 isticmaali kartaa mid 2 waxa isticmaali kartaa mid oo 19 mid waxa isticmaali kartaa 25 mid 24 intaas isticmaali kartaa marka insha Allah maanta waxaan isticmaal rabaa arka 20 okay isla soo marka insha Allah okay arka ka soo kicinayna soo kaco kuwan waa projectadii hore u sameeyay oo ii doornaayeen laakiin waxaan rabaa inaan project cusub bilaabo waxaan leeyahay create new ku dhufanaa kadib waxaan leeyahay new marka new dhaho waxay soo hormaay shaashada architect ama meeshii oo naqshadii lagu sameey lahaa waxyaabihii u baahan tahay lagu sawir lahaa inta wadno programkan ama course-kan waxaan noqon doonaa course oo فاني features كان عن سيف أنا أو شرح دونه features كان ويكل مد بخيبة لو استعماله مد بوكل دوين هاي ويابا دانا استعمالنا وحكم ده wallكي دورسكي windowكي سو كلا column كي واستعمالنا slab كي staircase كي إنتنا واستعمالنا مرك كورس كان كورس كذي هو ودمنا دونا إن شاء الله feature كبرك شرحنا كده بقى دونا نقشد okay naqshad markay saanku soo kacdo saan soo kacdo wax ugu horeey oo la saxay waxay tahay inaad saacdo wax loo cabirkii oo naqshada ku sameeyay lahayd inaad iska saacdo markuu ugu horeyso waxaan sameynaa cabirka oo guriga sameynaa marka cabirka guriga saano kadib waxaan sameynaa wallka oo cabirka uu ku yeelanayo sidoo kale properties walba saasa ku sameynaa marka saasa ku wadayna insha Allah asla soo okay markuu ugu horeyso aragtid markii saan loo soo galo waxa la saxaa ugu horeey maxaa la programka unit ko ku shaqeynayo waxa ku dhig ka tagtaa qaybtan ay ku qoran tahay option kadib waxa ku soo dhufataa work project interference project reference meesha ay ku qoran tahay kadib waxa ku soo dhufataa work unit inta markaa ku dhufato shaashadan ku soo horma doonto shaashadan waxa ay ku tilmaantaa model unit ka lagu cabirayo modelka guriga layout mid kale ugu cabira iyo angaliska sidaas saxeebis modelka aan markii guriga shaykiisa 2D markuu yahay 3D markuu yahay 3D markuu yahay guriga maxaa lagu cabira okay 3D ahaan markii loo sameeyay sidoo kale layout kaagana si maxaa lagu cabira intaas iska saxeeb intaan marka programka waxa ku fiican yahay inaad ka dhigatid arc inaad ka dhigatid waxa fiican millimeter ina isticmaashaa fi amrul marka millimeter isticmaalana kadib antu waxba ma ka bedelaay marka kadib okay anaam saan markuu ku soo furmo wax ugu horeeya aan saxayno waxay tahay ina wallkii aad tagno sharaxaad ku saabsan wallkii sharaxayna marka wall ku dhufo wallka waa kana qaybtaan oo ku dhax jira waxa dhici karto inuu macnaha qaybtaan dhan ay ka maqan tahay qaybtaan haday ka tagto qaab loo keenay aad jirto qaybkaasna waa idin tusinayeen okay qaybtan meesha rabtaa geeso kartaa waa qaadan kartaa inta ka soo qaadan kartaa falaarta markay saan ku noqoto inta meesha rabtaa geeso kartaa inta waa bedel kartaa intan waa ku yaali karaa marka okay wali hada masaxno markuu saxmasaana laga rabaa inuu soo baxo waxa ku jirto marka saddexdan shay design waxa ku jira design waxa loogu talagalay wixii oo wax lagu design gareynayo oo dhan okay
documentiska waxaa waaye wixii wax lagu qoraayo hadday leen aa rabto inaad magaca ku qorto haddii aa rabto inaa ku qorto wax magacaa ku qorto naqshadaada haddii dimension aa u samey rabto intaas dhan waxaa loogu daraa marka intaa loogu daraa okay markaa ka gudubna marka wall intana markan waxaa ku jiro marka grid linekiisa ku jiro ama isbaagooyinka guriga sidoo kale waxaa ku jiro daaqadaha oo loo isticmaalo ama waa wall oo wallash oo ma derbiyada loo isticmaalo qaybta oo indiga guriga loo isticmaalo sidoo kale carton windowga iyadana oo corner geesaha loo isticmaala ku jira sidoo kale lambiskiisa ku jira iyo intaas ku jira marka hadda waxaa ka bilaabaynaa design furaynaa waxa ugu horeeya sheegan wall furaynaa wall marka active aa rabto inaa active aa samayso ama inaa soo kiciso wall shaashadiis laba mar aa ka dhegsaynaya laba mar kale markaas shaashadana ku soo kiciso shaashadan waxaa laga wadaa sanduuqa wax ka bedelka wallka qaabkii wax loogu bedeli lahay meelihii wax loogu bedeli lahay intay ku jiraan marka waxaa laga rabaa inaa wax ka bedesho wixii aa ka bedelaysa qaybtan ugu horeyso waa geometric and position geometry waxaa laga wadaa cabirka guriga wallka oo yeelanayo iyo meesha oo dhigmayo story 1 maa laga dhigaa story 2 maa laga dhigaa wallkiga cabirkiisa 3 mitir ma 4 mitir ma inta lagu saxaa marka waxaa waaye marka waxa ugu horeeya hadda wall topka surface-ka wallka oo ku xirmaayo hadda waxaa nooga qoran story homes plus aan nooga qoran story homes plus waxaa lagu wadaa story 1 story 2 story 3 saasa u xirmaa marka wallka mar walba marka hadda story 1 markaan dhaho story 1 wallkiga cabirkiisa default waa markaas haddii story 1 aan dhaho haddii story 2 aan dhahna default waa noqonaa laakiin haddii oo macnaha nodlink aan dhaho cabirkayga waxbaa ka bedeli karaa 2 mitir ka dhigi karaa 3 mitir ka dhigi karaa 4 mitir ka dhigi karaa marka waxaa ka dhiganaynaa marka 3 oo ah 3 mitir okay qaybtan maxaa waaye home story wallka meesha ka soo kacay story 1 maa laga kicinaa story 2 maa laga kicinaa groundka hoos maa laga soo kicinaa meesha laga soo kicinaa marka okay qaybtan iidan waxaa waaye project 0 waxaa laga wadaa projectigaaga meesha uu ka soo bilaabanayo cabirka dhulka meeqa laga kicinaa 3 mitir maa laga kicinaa 2 mitir maa laga kicinaa meer walba oo cabirkayga inta aa kiciyo waxuu noqonaa oo ka jara qaybtan oo kaaga jara meena guriga inta xoolo laga soo kiciyo inta uu kaaga jara haddii nooma doorano story nooma doorano haddii storygan aan dhaho story 1 inta uu kaaga jara cabirkaaga qonka inta uu ka jaraya toobka hoos kaaga soo dhigi kuwa marka saas waa okay nodlink node 3 mitir anta 0 iska dhig marka inuu dhulka ka soo kaca rabnaa wallkayga okay anta markii laga soo gudbo waxaa ku xigo halahan sidoo kale qaybtan waxaa ku doorataa structure basic complex profile aa ka dooranay si aa u doorato haddii ay qaybtan dambe ay ku dooran tahay thicknesskiis wax ma ka bedeli karto gurigaaga bulkeetigaaga ama derbigaaga marka waxaa si aan wax ugu bedelno waxaan ka dhigaynaynaa marka waxaan dooranaynaa qaybtan ugu horeyso oo ay ku qoran complex profile meesha ay ku qoran tahay kadib cabirka 200 aa ka dhiganaynaa bulkeetiga thicknesskiis waa 200 mid waa 150 mid waxaa waaye 400 mid maya 400 waa dhagax markii la dhisay laakiin inta kale waa 200 iyo 150 marka saas insha Allah waan wadna marka 200 waaye waxaa ku xigo qaybtan waxaa kaloo isticmaalaynaa sectionadan inta lama isticmaalo iska daa qaybtan modelka ay ku qoran tahay modelkan waxaa laga wadaa kalarka oo derbigaaga uu ku yeelnaa hadda wuu furan yahay waa xirxiran yahay waa furaynaa marka si aan u xirno waxaa ku dhufanaynaa qaybtan banaan oo ay ku qoran tahay overlay surface meesha ku qoran tahay aa kalik siinay kadibna kana kalik siinay kadib kale intaan dhan karoon oo kugu yeelo qaybtan derbiga banaanka inta kugu yeelanayo waaye qaybtan dhaxda derbiga ama thicknesska derbiga ee kalarka ugu yeelanayo waaye waxaa kaloo ku xigto qaybtan qaybta ugu dambeysa oo gudaha kalarka oo ku yeelanayo wallkaaga okay aan barogayna hadda kay sandaan inta ku dhufo markuu san yahay fiiri maxaa ku soo baxay 3D gis inta ku dhufo waa kana hadda fiiri marka kalarka 3 kalar kala gooniyo wataa muujada labadan kalar isku kalar waay qaybtan waa cadaan marka waa kala bedeleynaa marka si aan ugu dhigno wallkii mar labaad laba mar klik si qaybtan labada mar way isku egyihiin qaybtan waa qaybta gooni okay qaybtan asidan isku mid haddaan rabno inaan ka dhigno intaa doornay link surface adhe kadib hal mid ka mid ah ama kan dhexda doornay hal kalar oo doornay intaasoo kalar ku jirto marka kalar oo cadaan haddaan rabto mid iska dooro
cadaanka hadda guriga markii la dhisay cadaanka wuu ku fiican yahay sababtoo ah markii oo kalarada aa u samaynayso guriga kow cadaan markaa ka dhigto inaad wax kaba bedeshaa fiican marka cadaana ka dhiganayna kadib waxaa leenahay okay woolkiisaana noogu saxan yahay waa kana cadaan waayo okay aan iska deleedna kuwan waa dooranay markaa deleedi rabto deleedaas ka leeyahay okay intaa marka ka gudubno waxaa dhici karta marka woolka markaa soo qaadato kilikaasaa soo dhahdo markaasaan u soo jiido cabirka inuu kuu saxmi waayo ama angalkan aa u jeedi inuu saxmi waayo oo saana iska dhigo waxaa taabanaya shifti angalka markaasaan u soo toosiso shiftiyaa taabanaya ma dhaqaaqayo marka isbedelaya ma jeedo kor loo bixi karaa hoos loo bixi karaa laakiin cabirkiisu isbedelayo angalka ma bedelayo marka aa soo saanaya shiftiyaa taabanaya kadib waxaa gelinaya cabirka arag 3,000 mitir 3,000 waa kana cabirka ma jeedaa 3,000 waa 3 mitir waa okay aan ka gudubno marka naqshadeena sameysanaynaa naqshadeena waxaa waan ka rabnaa inaan ka dhigano 20-15 soo qaado cabirkaaga waxaa woolka hal mar thicknesska haddaa bedesho isbedelaya sidiisoo ku ahaana kadib anta ku dhufo kadib anta dhigo marka waa kana marka woolkaaga hadda waa ku samaysan yahay qaybtaana saana u sameynay adoo qaybtaan ka bedelaayo qaybtan iyada waxay kugu dhimantaa outside surface hadda waxaa noo yahay iyada dhan waxay shaqeysaa location ama dhinac oo derbigaaga maraayo dhinacaas ma loo dhigaa mise dhinacana loo soo dhigaa marka saas waa kadib waa kana cabirka hadda gurigaaga hadda kan waxaa u dhigantaa ninka fahmaayo isbaagooyinka maxaa la xiraa hal leenaa la xiraa ko hal leen markaa xirato kadib dhinacyada kale aa ku saanaya marka hadda leenkan dhinacaan saana noogu xirnaado kan inaa iska jaraa rabaa control aa qabanaa keligaas inaalis okay kanaa dooranaya marka gurigay dhinaca meeqaa u rabaa inuu ii noqdo 15 control shift d saana u soo jiiday marka waa gelinay marka tirada 15 2 2 3 okay derbiga maadaama hadda surfacekiis banaanka jiro gudaha soo gelinaya waxaa leedahay qaybtan dooro wall okay kan waa iska xiray mar labaad kan soo qaado waxaa leedahay control shift d intuu soo bax meeqaay 20 2 3 kadib kan seedi kan jar kan mido cabirka guriga waa kana marka aan rabno inaan sameyno kadib qolalka cabirka waa iska saxay cabirkiisa iska fiirinaya document tag kadib qaybtan ku dhufo qaybtan ku dhufo waxaa leedahay hal mar kale meeqaay 15 kan ku dhufo ilaa inta keen waa kana marka gurigay meeqaay 15 okay waxaan ugu eega marka isbaagooyinka sida loogu xiro isbaagooyinka waxaa loo isticmaalaa iyagana waa kana intay ku jiraan guriga isbaagooyinkiisa meeshaan moor ay ku qoran tahay ku dhufo kadib grade line soo qaado grade line cabirkiisa waa kana click markaas shaashadan qaybtaan ku soo furmayto oo ah default settings ku soo furmayso qaybtaan click markaas soo waxa ku soo baxay kala qaabkiisa oo noqonaa inta maxaa waaye meesha magaca uu qormaayo sidoo kale magaca ilaa meeqa cabirkiisa meeqoo noqonaa ay circle-kan dimensionkiisa meeqoo noqonaa intaa lagu sameeyaa marka iska daa kadib waa wataa marka intaa ku qabanaa kadib intaasana u jiidaa bis keligaasina waa kana hadda isbaagada koowaad tanaa doorna marka tan markaa doorto control d intaa ku saxaa taa soo qaada waxaa geenaa inta marka ujeedaa waa kana kan markuu saan ku yahay kan labaadaa samaysanaya kan labaadaasina saan dhaa u sameeya bis kanna dooro control d derbiga geeskaan geeyo waa kana marka isbaagooyinka labada dhinac saasaa u samaysanaya okay waxaan ugu xiri doona marka in isbaagada tan saan markay tahay videoga labaad insha Allah waxaa ku sharxi doonaa qaabka gurigaaga markii oo wallkaaga banaanka aad samaysatid qaabka loo jeexayo qolalka marka insha Allah videoga xiga intaa ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.